ducada ku saabsan tukoo waxaan idin odhan lahaa rabbi ha ka quusanina adigoo rabbi ku kalsoon qur-aanka waxaan u malaynayaa 280 aayadood meelahaasi oo baryada ilaahay ku saabsan inay kusoo aroorto qiyaas 280 aayadood oo baryo ka warramaya waxay culammadu yidhaahdaan suuradda lagu bilaabayna waxaa laynoo tusiyey ilaahay baryadii walxamdu maalin kasta waynu akrinaa qur-aanka iyada u horeysa maxaa ku qoran iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maxaa ku xiga ihdina asiraata almustaqiim inaynu ilaahay baryadiisa laasimnaa layna barayaa markaad soo wada 280 aayadood maxay ku dhammaadaan nabi maxamed oo ilaahay leeya qul acuudu birabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas waxaad tidhahdaa waxaan magan galay waa baryo kale ilaah wadaalku magan gala idan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa araxmaan araxiim waa ilaah naxariis badan haddii dembigaagu badan yahay waa ilaah gafuurna gafuura in yaroo xasanada haddaad la timaado waa ilaah shakuura shaakira kaga mahadnaqaya ilaahay marnaba ha ka quusan ee waqtiyada nusuustu tilmaamaysa in ilaahay ducada xoog u aqbalo intaad istaagto habeenkii ilaahay bari tuko oo ilaahay bari oo ku celceli baryada ilxaax samee ilxaax samee kaasi waa mid labaadee waxaad ogaataa baryadaynu ku celcelinayna weligaa hayso dhan lagaama aqbalin hadday dhabkaata ilaahay wuu aqbalay laakiin wuxuu nabigu inoo tilmaamay baryadu mar waa cibaado oo dee salaada iyo waxaa layna faro dhami waa inaynu addoonnimo qirno oo ilaahay barino maadaama ay cibaado tahay kitaabkaaga ajarkay gelaysaayo maalin aad maanta kasii baahi badantay baa ilaahay kugu abaalmarinaya taasi waa mid waxaa kaloo dhici karta mashaakil ka waaweyn oo soo socday in ilaahay kaaga celiyo waa laba waxaa kaloo dhici karta intan yare adigu aad doonaysa in ilaahay kaa siiyo innagu indheergarad ma nihin marka xagga alla la eego meel gaaban baynu aragnaa wax badan aad sileeday balaayaa kuugu soo socota ama dhib ayaa laga yaabaa khayrba kuugu jiray ilaahay subxaana wa tacaala casaa tuxibu shay-an ilahay wuxuu tilmaamay waxaa la arkaa inay wax nacdaan oo khayr idinku jiro inay wax jeclaataan oo shar idinku jiro isagaa garanaya isagaa kuu dooraya idan adigu ilaahay subxaana wa tacaala baryadiisa badi oo marnaba ha ka quusanini ku celceli waxaan u malaynayaa wax kale idinma dheeri dee inaan musaafir ahay u mooyaane sunnada nabiguna waxay tilmaamaysaa dadka musaafiriintii inay ka mid yihiin asbaabaha ducada lagu aqbalo asbaabaha ducada lagu aqbalo inay wax kuna ardi dheeray ma jiro inaan un musaafirnimada idinku duceeyo mooyaane waxba kale ma jiraan laakiin way idiin ducaynaya idinkuna aamiin dhah si ducadu qofka aamiin leh ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay nebi muuse iyo nebi haaruuna wada socda waxaa laynoo sheegay nebi muuse oo fircoon iyo gurubkiisii habaaraya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu weydiisanaya qur-aanku sheegay aayaadka dambena waxaa la tilmaamay in ducadoodii la aqbalay aayadda hore waxay sheegaysaa inuu nebi muuse hadlayay aayadda ku xigtaana waxay sheegaysaa in ducadoodii la aqbalay waxay culimmadu yidhahdaa midna wuu ducaynayay midna aamiin buu lahaa marka labaduba way duceeyeen weeyaan midna waa ducaynayey midna aamiin buu lahaa taa macnaheedu waxa weeya labadiiba inay ducaynayeen waa wada ducaysanaynaa ee aamiinta xoojiyo bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu dembigeena dhaafo dembigii waalidkeen dhaafo inta maytida inaga hooseysa ilaahay u naxariistee muslimka inta nool imtixaanaadka iyo balaayooyinka in ilaahay u fudaydiyo dhulkaynu ka nimin ilaahay nabad iyo barwaaqo siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inuu ku hanuuniyo
kuwii xaqa isugu yimaadee isku raaceen alla ka yeelo kuwii sharka alla ka faydeen alla ka yeelo diinteenna in ilaahay ina fahamsiiyo diinteenna ilaahay subxaana wa tacaala ina fahamsiiyo inta bugta in ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad khayr qaba siiyo inta dhib kala haysata in ilaahay dhibta ka faydo qof waliba muraad buu leeyahay muraadkiisoo khayr leyna la waafajiyo inteena isugu nimi masaajidka ilaahay ee ku ictikaafay ee ilaahay subxaana wa tacaala salaad u tukaday ee salaad kalena sugayay in alla inaga aqbalo in alla subxaana wa tacaala mashaakilkaynu ka cabanayno dhammaantood inaga qaado inta carruur inaga luntay in alla inoo soo celiyo inta ubadaynu ka shakisan in alla inoo sugo inta aynu imtixaan galayna in alla inoo fudaydiyo noloshu ma imtixaan weydee in ilaahay sawaabka ina waafajiyo iyo sida khayrku ku jiro ummadda muslimiinta dhammaanteed meelay joogtaba in ilaahay dembigooda dhaaf ilaahay u naxariisto kuwoodii dhintay ilaahay u naxariisto kuwoodii saalixa iyo kuwoodii taalixaba in ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda dhaafo kuwa noolna in ilaahay xaqa tusiyo diintiisana ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaro صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم